dadka qaar ay naga tagay ma dhihi karno sabab la'aan bay u tageen oo ma jiro wax u dhaca sabab la'aan oo wax kasta waxay leeyihiin sabab dadkaasi naga tagay waxa kamid ahaa kuwa aad inoo jeclaa waxa kamid ahaa kuwa na siin jiray muhiimad gaar ah oo ina ixtiraami jiray waxa kamid ahaa kuwa inoo samri jiray si kasta inuu ugu gafno sidoo kale waxa kamid ahaa kuwa inoo daneyn jiray oo inooga fikiri jiray in ka badan inta ay naftoodu ka fikiri jireen balse inaga ayaa ku qasabnay inay naga tagaan oo inaga fogaadaan sabab sideen ugu qasabnay inay naga fogaadaan oo ay ka baxaan deerka nolosheena maxaa yeelay waxaynu u dhaawacnay si zabajooga waxaynu u geysanay qulubtooda dhaawacyo ay adag tahay inay si sahlan uga bogsadaan inagoonan ka fikiraynin dareenkooda xaqiiqdii iyagu maysan ahayn kuwa loo abuuray inay inaga uun raali geliyaan maysan ahayn kuwa loo xil saaray iyaga kaliya inay la yimaadaan danayn joogto ah oo maysan ahayn kuwa ku qasbanaa iyaga uun inay la yimaadaan samirka iyo dulqaadka balse waxaa waajib ahayd in labada dhinacba ay daneeyaan oo daryeelaan waxa ay dantoodu tahay hase yeeshee waxayna daryeeli jireen iyaga in ka badan inta aynu mudnayn innaga laakiin hadda ayaan dareennay in qofka oo la dhaawaca sharaftiisa iyo karaamadiisu ay sababi karto fogaansho iyo tegid sidoo kale hadda ayaynu dareennay dadka qaar oo naga fogaada inay tahay xanuun balse karaamada qofka waxay ka sarraysaa jacaylka idin dhex yaala mana jiro qof u dulqaadanayo karaamadiisoo lagu tumanayo siduu doonaba qofkaasi ha kuu jeclaadee